السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن idilhaantiin ba daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan daafaha caalamka ku soo dhawaada barnaamij cusub oo la magac baxay dheeho dhaawacayga waa mid kamid ah barnaamijyada ku cusub geeyiga Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka barnaamijkan toddobaadkiiba hal mar ayaad kala socon kartaa bartaan ku leenahay Facebook ee dheeho dhaawacayga waxaana ka qayb qaadan kara qof kasto ah bukaan caashaq haddii aad adigu qof jecel qofkaaga weeday haddii adigu qofku jecel aad cidlayso aad ka tagtay qof kastaaba halkani ayuu kaga warramayaa qisadii soo martay noloshiisa iyo qofkii uu jeclay oo waayay khadka telefoonka ayaad kaga soo qayb qaadanaysaa adigoo ka warramaya qisadii xanuunka lahayd ee ku soo martay iyo qofkaad jeclayd iyo fariintaad waliba halkani u marinayso anigoo Nasra Cabdi Ibraahim ayaan la socodsiinaya barnaamijka haddaba daawadayaal waxaan soo dhaweynayaa qofka ugu horeeya ee barnaamijkani ka qayb qaadanaya isla markaana jecel inuu nala wadaago qisadiisa qofkii uu jeclaa sababta uga tagay iyo waxyaabaha qofkaasi ku gadaaman hello assalaamu alaykum soo dhawo walaalo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء walaalo waa ku soo dhaweynayaa magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso waxaad ku dhex jirtaa barnaamij cusub oo hadda la bilaabayo oo la yiraahdo dheeho dhaawacayga haddii aad tahay qof bukaan caashaq iyo haddii adigu qof aad bukaan caashaq ka dhigtay labadaba waa ku soo dhaweynayaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso magacayga waxa la yiraahdaa Xariir Cali Aadin waxaan kala soo hadlayaa Turkiga Istanbul waa mahadsantahay haye barnaamijka qisadiisa waad fahansantahay maxaad nala wadaagaysaa adigu waxaan barnaamijka wuxuu noqon doonaa mid dhakhaatiir badan dhaawaca ku wareysta haye mucaasaqniinka ka qaada adigu bisaahan mudooyinka ku sii fogaadaysa qisada waxa baarsan miyaan asalaha inay u soo diisay gabigeeda qisada adiga kugu dhacday heestaas xambaarsan ba oo halkaas laga akhrisanaya waaye walaal heesta aad codsanayso fanaanka qaaday magaceeda heesta waxa qaaday walaal murshuud Allah u naxariisto wixii hooyadii la sheegay ka bilaabay weydiyay cudurka kuwalaacinaye Soomaa aad ma santahay walaalo waa rajeynaya qofkaasina inuu heestaasi marka uu dhageysto iyo barnaamijka iyo magacaaga inuu in badan isaguna waxaan leeyahay heestaasi kale qof loo taag waaye soo dabacban leeyahay qofka Allah ya ciise aad baa mahadsantahay waa kaaga mahad celinaya sida barnaamijka uga qayb qaadatay waa tahay daawadayaal qofkii koobaad waxa uu codsaday fanaanka Cumar Shooli hees uu qaado la yiraahdo naf yahay wadaad iyo waligii la sheegaba weydiiyay cudurkan ku walaacinaya aynu saarno heestiisa aynu la calaacalno la murugoona intaas kadibna aynu isku soo laabano نفي هاي ودادي ويل الشغبا عذرك ولا حناي أني هنا وحشك يقادي الديواني وعدك لمستي يا هاي ودادي ولي للشغبا ويدي عذرك ولا عناي نف يا هاي ودادي ولي للشغبا ويدي عذرك ولا عناي ولا عناي ويدي عذرك
diidaywani igana wax sheegiyo iga diidaywani wacdi kala bustee wayahay ku daaye wadadeed maraysa wayahay ku daaye wadadeed maraysa intaasi aan kaga imaado fanaanka Cumar Shoolaale ya raxmar raaximiin iyo heestiisii nafyahay wadaad iyo waligii la sheegaba weydiiyay cudurkan ku walaacinayay adiguna wax sheegay iga diidaywano iyo mid kamid ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka oo heestaasi codsaday sheegana in qisadiisu heestaasi ay ku kooban tahay halo salaamu calaykum calaykum asalaam raxmatullah soo dhawo walaalo magacaaga yaalkad ka soo hadlayso waxaad ku guday jirtaa barnaamijka dheeho dhaawacayga haddii aad dhaawacan tahay oo dhaymihi aad raadinayso iyo haddii aad adigu wax dhaawacdayba waa ku soo dhaweynaya waa dhawahay walaal qaali waa dhawahay magacaygu waa maxamed ismaaciil waxaan ka soo hadlayaa magaalada Hargeysa tolo macaylada iyo cishqiga ku badan badanaa dadku Hargeysa ka soo hadlayaan hoyga fanka lagu ogaa hoyga caashiqna ma noqoto kulli hoyga caashiq Hargeysa haye waa ku soo dhaweynaya maxamed maxaad barnaamijka kaga qayb qaadanaysaa ma qisad noo haysaa ma soo dhawo duka markaan imaado waxay soo dhaweeyay hooyada iyo walaashay haye wadada soo dhaweysana waxa ma hadee hooyo walaalo ku soo dhaweeyeen de ku qaado waxay ka dhigantahay marwadina ku soo dhaweysay de marwadina way soo dhaweynaysaa insha Allah warajeeni anay ku soo dhaweyso maxaa aad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka waxaan kaga qayb qaadanayaa qisas la yiraahdo khiyaano dumar Allah haya inkastoo dumar haya khiyaamo dumar mar horaan hayay khiyaamo rag ee wad waa baraaje بينني وريسا خيام رك سو ديسي ما inaan baa soo daayo wuxuu inaan baa khiyaamay marka waa la kala joogaa mar hadii adigana lagu khiyaamay wad ka saga nacsamada runtu ku rafanaya qofku uu khaldami karaa nin iyo gabadh labaduba wax khiyaami karaan inta badan laakiin eeda anagu baan la saaraa la dumarka khaldama laakiin waa nin wanaagsan anigu wanaag baan u hayaa mar hadii ba qirta inuu na khiyaamay ila waxa taagantii dumarba wax khiyaamay hadii balan la galo gabadhu ku jirta sameey khiyaamahay hadii balan la galo gabadhu ka baxdo ma khiyaamo ma hada inay adiga toos ku dido ka tagtaa khiyaamo laakiin balanku arrimo kale ugu jabi karaa Soomaa adigu waxa u maleynaya waxa weeye tolo ma calaf raadis bad barnaamijka kaga qayb qaadanaysa Soomaa adigu single baatay aqul waqtiga ma ana xaajigay waa haystaa dhinacaygu jooga laakiin gabadh wanaagsan search baan ku galanaa hadii Ilaahay ka dhigo wad mahadsantahay sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaadatayna هذا موضوع المعان لكن انت حاجه ka qaad waxa sameeyaa biyaha barnaamijka daawanayna iyo qurux badan baatay ma sha Allah aad ma santahay wa kaga macalcelinay daawashada barnaamijka ma santahay waqtiga qaadiga adigu hortay haye walaalo sidoo kale waa tahay daawadayaal kaasina waa mid kamid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka in kasta uu calaf iyo guur iyo arrimahaasina la galay ka war hayaan la wiilkaasina guntiga gabagabadii ayaynu soo gaarnay waxaan soo qabanayaa qofka ugu dambeeya iyo qisadiisa kadibna waxaynu isku macasalaameynaa hawada toddobaadkii waa hal mar ayaad ka daawanaysaa page-ka aan ku leenahay Facebook ee dheeho dhaawacayga qof kasta oo dhaawac jacayl qaba iyo qiso muruga leh nala wadaagayana waanu ku soo dhaweynaynaa barnaamijka halo assalaamu calaykum waa ku soo dhaweynayaa walaashay waa ku faraxsanahay inaad gabar tahay intii hore barnaamijka niman baa haystay magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso
waa Nuura ka soo hadlaysa Turkiga haye Nuura soo dhawo walaalo waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka qayb ka tahay maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka ma adiga qof cileeyay oo ka tagay saada lagu cileeyay cidna ma cileyn cidna ima cileyn laakiin dad cileeyay baan qisooyinkooda hayaan ayaad qisooyinkooda haysan la wadaagaysaa haye kale ma dheera isku ku dheereen maayo laakiin ku soo gaagaabanaya insha Allah aad iyo aad soo gaabi saasa fiican dad aan asxaabnahay aan magacyadooda halka ka sheegayni ayaa muddo wada sheegsanaya adoo muddo 4 sano ay wada sheegsanayeen ma garanaysaa haye laba wadan oo kala fogna way joogeen waan gartay marka waxa dhacday muddo wada socdeen in dad jecel bay ahaayeen inay iskursadaan bay mustaqbalka rabeen laakiin waxa dhacday maalmaha kamid ah wiilkii wax qiyaamay tana gabadhii wuxuu ku sameeyay haye gabadhii wuxuu ku sameeyay isagoo ogeey wadankii yimiday kadibna familygooda waxa u dhiseen gabadh oo ku dareen iyagoo ogeey horuwa ka guursaday gabadhii isaguna ma oran xiriir baan leh inantii waxba ogeey ya isaguna ma oran qofan xiriir la leeyahay horu ka gala guurkiisa ma waxba uu soo sheegin muddo may wada hadin marka taleefanka kama qaban iyaduna xisaabtaro maxaa ku dhacay waan gartay yimiday gabadh buu guursaday aroos baa loo dhigay inantii baa arooska laga wacay oo macna asxaabteedu ku dhan saxab aroos baa tagayna ma raac waan gartay inantii notification loo ma keen laga habli waxa ku dhaanaga notification ku hayna in mari way israaceen arooskii la tagay dawad ogtoo dumarkaas gabadha aroosada soo horeysa arooska marka imanayso inta hore gabadha aad yaa iska haysata mood ha arooska intii dambe loo faraxsanaa baa inankii baa soo galaya la soo dhaweeyay mood waan gartay waaba inankii inan gacanta haysta illa cibaaradu saad moodo waa inankii dhamaay inanta xiriirka la lahaa ee muddada ay ka qaban weyday ee ka warwarsaneed maxaa ku dhacay lahayd ayaa ku yar soo gabadh la laafiyoon iyo aroosadii gacanta hayaba inantii way xanuunsatay meeshii adoo dhakhtar baa la geeyay muddo dhakhtar taalay adoo xaalad xun bay gashay waan gartay dambe qofku ka soo kabanaya dhib kasto marar Soomaali aad iyo aad ka soo kabanaya marka hees baan ayaan u xul lahaa qalbi jabay miyaa qosol lagu dhayaa oo Khalid Kaamil qaado alla yaa cisig qalbi jabay miyaa qosol lagu kabaa qosol lagu kabaa waa mahadsan tahay walaalo waa kaaga mahad celinaya waana ka xumahay waxoogaa gabdhaha arintoodu si gaar ah taabanaysa maadaama aan gabadhahay laakiin waxaan leeyahay dhibta hal la yareysdaba leeyahay rag iyo dumarba waana ka xumahay adigana waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaadatay muxuu ahaa qisadaasi ila wadaagtay waana ku soo deynaya heesta Khalid Kaamil walaalo insha Allah waad mahadsantahay walaalo in kale hablo dhan wata saani laftigeega waxaan uga sheegay way taabatay sheekada Soomaaliya aad iyo aad waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed islaali oo kale mid aad bursanaysan ama mustaqbalka waqti dheer hasinna baabana hadda aan sanahay mar hadii waqtiga dheer laga faa'iideysanayo inta la iska maqnaado la iimaanayo la guursanayo inad ma aaminaysaa ninka aad la sheegaysanaysa bari iska imaado gabadh kala guursado laba dhibaatooyin baa ka soo gaaraysa aad iyo hablaha waxaan leeyahay waa hablo hablaha dhowr leeyahay waka hablowna ragga dhowra hal is dhowra weeyaan Soomaa muhiimadu hal is dhowra aad iyo aad baad u mahadsan tahay Nuuray adiga iyo asxaabta reeran karana aad baan u salaamaya anaga salaamana macaan barnaamijkan asxaabtaada oo wada salaamaya haye aad iyo aad walaalo haye mahadsanid adaa mudan haye aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Nuura oo ka soo hadlaysay dalka Turkiga inala wadaagtay qiso aad u murugo badan qofkii uu jeclaa ee uu sugayay waqtiga badan la socday waliba muddo markaasi telefoonku uu ka qaban waayay oo la kulmay isagoo guursanaya waa arin murugo leh waxay naga dalbatay fanaanka daada yar Khalid Kaamil hees uu leeyahay guntiga gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay daawadayaal waxaan u mahad celinayaa kamarada quruxda badan iyo muuqaalka idin soo gaaraya wiilka duubay Cabdilaahi anigoo Nasra Cabdi Ibraahim ayaa idin la socodsiinaysay tan iyo saarag dambe barnaamijkan kiisa xigay intaan ku kulmi doono Khalid Kaamil iyo qalbi jabay miyaa qosol lagu kabaa nabadgelyo qalbi
bijabay miya qosol lagu dhayaa qowlayri miyo qadar baajiya bijabay miya qosol lagu dhayaa qowlayri miyo qadar baajiya quru wax jecel miya qoos lagu karaa qomamadu miyey qandha kaa tirtaa qudh wax jecel miya qoos lagu karaa qomamadu miyey qandha kaa tirtaa dadku way isqabtaa isna qoonsadaa qaaladkayga dhacay dembigii qirtee ma waxban qarsaday dembigii qirtee ma waxban qarsaday dadku way isqabtaa isna qoonsadaa qaaladkayga dhacay dembigii qirtee ma waxban qarsaday dembigii qirtee ma waxban qarsaday